السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حث عباده على المسابقة إلى الخيرات، ورغبهم في عمل الصالحات ليغفر لهم بذلك الذنوب ويكفر عنهم السيئات ويرفع لهم الدرجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسع العطايا والهبات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر وأفضل المخلوقات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا مباركا مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وبادروا في اغتنام حياتكم قبل فنائها وأعماركم قبل انقضائها بفعل الخيرات والإكثار من الطاعات. عباد الله، فإن الفرص لا تدوم، والعوارض التي تحول بين الإنسان وبين العمل كثيرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. walaalyaal، waxaa maanta khudbadeenna aynu kaga hadli doonaa استفادة الأعمال الصالحات قبل أمور 7 بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. عملك الصالح إنه كفايديسنو انت آني إنغو إمن تطبع الرموض والنبي إنه قدقي صلوات ربي وسلامه عليه. رسولك صلى الله عليه وسلم ولا ليال وحوينوها نحريس raacitaankiisa iyo waxa weeyaan sunnadiisa oo lagu dhaqmaa naxariis ina badbaadinaysa adduun iyo aakhiraba ayaa rasuulku inoo ahaa salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh. waxaa jirta haddaba 7 arrimood oo camalkaynu qabanayna caqabad ku ah oo nebigu inooga digay inta aanay 7da mid ka midi aanu imanin inaynu ka faa'iideysano waqtigeena iyo cimrigeena, camalkana aynu u degdegno. waxaa ku sugan xadiidkii imaamu tirmidi uu soo saarayay sanadkiisana uu taxsiininayay min xadiidi abi hurayra radiyallahu ta'ala canhu, rasuulku inuu yidhi: baadiruu bilacmaali 7 camalka u degdega oo hore u qabta inta aanay idinku imanin 7 arrimood. hal tantadiruuna ilaa faqran munsiya. waxa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam camalka hore u qabto waqtiga ka faa'iideysta inta aanu idinku imanin. waa arrinta koobaade faqri aanu idin taabanin, faqrigaasoo cibaadadii iyo khayrkii idin ilowsiiya. sidaynu ognahay walaalayaal, cudurka la yidhaahdo faqrigu waxaa la tilmaamaa inuu yahay sharu dircin yalbasuhu alcabd. waa diraca ugu sharka badan leh amba marada ugu sharka badan leh addoonku uu xidho weeyaan. addoonku marka faqri uu la kulmo ee noloshiisu aad ay hoos ugu dhacdo, waxyaabo badan ayuu u baahan yahay. waxa uu baahnaanayaa cunudii, cabidii, dharkii, meeshii uu gelayay ee uu ku hoyanayay, dumarkii, waxaasoo dhan buu u baahan yahay qofkii.
kabacdi waxa uu ku fikirayaa 24 saacadoodba sidoo arrimaha u xallin lahaa ayaa maskaxdiisa aad ugu soo noqnoqonaysa dabeetana wuxuu noqonayaa qof cidhiidhi ku nool oo waqtiga uu marayo oo dhanba warwar ku qaatay iyo waxa weeye arrimaha sidoo u xasilin lahaa waxa halka markaa ka soo baxaysa in cibaadadii uu ka mashquulo oo adduunyada iyo warwarkeeda uu ku mashquulo ayaa halka ka dhalanaysa sidaas rasuulku uu leeyahay inta aanu faqrigaasi idin taabanin oo aanay marxaladaasi idin soo marin marxalada aaladantihiin ka faa'iideysta oo cibaadada iyo wanaag iyo khayrka la yimaada arinta labaad ee nabigu uu yiri cibaadada ku dadaala inta aanay idin ku habsanin aw ghinan mudghiya inta aanay idin taabanin ghaninimo xadka idin ka saarta cibaadada ku dadaala buu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam oo waxa aad iska macluum oo la og yahay qofku marka maal adduunyo uu helo ee uu xoogay umada uu ka saramaro maalkaasi inta badan wuxuu sabab u noqdaa qofkaasi inuu xadka ka baxo oo fasaad badan uu sameeyo oo maalkiisa dadka uu ku dulmiyo oo qaarkood tumasho ay ula baydhaan ayaa maalkaasi uu keenaa kabacdi halka waxa ka dhalata in waajibaadkii adoonka lagu lahaa uu dayacmo fudaydsada wixii xaaraanta ahaa ilaa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ilaaliyay mooyaane oo nolosha adduunyo raaxadii markay dhammaystiranto macaankeeda ayaa qofkii jiidanaya sida ilaahay uu tilmaamay kallaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istaghnaa alla waxa uu yidhi waxa xaqiiqo ah bila'aadamku inuu xadgudbayo marka uu arka naftiisii oo qani noqotay oo maal heshay inuu xadgudbaya ayaa xaqiiqo ah buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala arinta saddexaad ee nabigu yidhi ka faa'iideysta inta aanay idinku habsanin aw maradan mufsida inta aanu idinku imanin xanuun idin fasahaadiya camalka iyo wanaagga ku dadaala buu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam oo xanuunku isaguna walaalayaal waxa uu fasahaadkiisu uu ka bilaabmaya qofka jirkiisii baa daciifaya awoodiisii baa tamar daraynaysa sidaa darteed wuxuu sabab u noqonayaa xanuunkaasi in cibaadooyinka qaarkood uu gudan kari waayo in salaadii waajibka ahayd istaagu ku tukan kari waayo arrimahaasoo dhan buu keenayaa xanuunkii inuu safar u geli kari waayo xajkii uu soo xajiyi kari waayo in bishii rabadaan uu gudan kari waayo waajibaadkii ugu waaweynaayo dhan baan u suurtagelaynin marka xanuunku uu yimaado saa darteed adoonku intuu caafimaad qabo waa marka qalbigiisu uu fayow yahay ee cibaadada waxa weeyaan uu ballaadhan yahay samaynteeda mar haddii qofku uu xanuunsado waqtigiisu wuxuu ku ururayaa warwar iyo noloshiisii oo uu ka fikiro iyo hadba meel inuu caafimaad u doonto isaga ayaa isku mashquulaya intaanay taasi imanin intaad caafimaadka qabto ka faa'iideysa buu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam camalka saalixa arinta afaraad aw haraman mufnida waxa uu yidhi rasuulku inta aanay imanin gabow idin dhammeeya ka faa'iideysta waqtigiina buu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam oo camalka saalixa ku dadaala qofku marka uu gaboobo waxaan ognahay xubnihiisii oo dhan baa wada daciifaya hadday lugihii noqoto hadday indhihii noqoto hadday istaaggii cibaadada lagu gudanaya ay noqoto gebigiisu waa wada daciifaya qofkii oo uu tamar daraynaya mararka qaarna gebagu wuxuu gaadhsiinayaa inuu waxba kala garan waayo oo hadalkiisii iyo ficilkiisii iyo wuxuu tukaday toona uu kala garan waayo oo uu khalkhalo ayaa mararka qaarna qofku uu gaadhaya haddaba inta aanay taasi idinku habsanin oonay idinla kulmin ka faa'iideysta buu leeyahay rasuulku camalka saalixa ah oo la yimaada qodobka shanaad aw mawtan mujhiza inta aanay idinku imanin geeri idin diyaar garayso oo qabriga idin gelisa camalka saalixa ka faa'iideysta buu leeyahay rasuulku salawaatu rabbi wa salaamu calayh waliba geeridu dee siyaabo kala duwan bay ku timaadaa
توقو حنونك بدن لي وحويا أنت قفك سكدي ساوقو دعدي موت القفلة الله يدعو هذا بوري سمها يسيد إن جيريد هذا أيسيد عن نقون دونتو وأديكون ديار جرومين أي كل ميك دونتو مركا كفايدي سبا الرسول كولي هي حلقة عاد وحويا نوشهي فرصة الآن يو حويا مشغول يو كوكو دافنه وقتigaga ku tala galba rasuulku leeyahay sallallahu alayhi wasallam oo waxaynu ognahay walaalayaal imisa qof oo subaxii gurigiisa ka baxay oo isagoo caafimaad qaba ka tagay ayaa lagu soo celiyay saacada kadib iyadoo waxa weeyaan meeydoo la sido oo naxashka uu saaran yahay bal xisaabi inta qof imika aad kala tagteen ee la yiri saaka isagoo caafimaad qaba ayuu baxay duhurkiina xabaashiisa loo dareeray سادرتد بار رسولك وحوليه هي ورعملك كفايديستا انت اني جيريدا سيدن كهب سنين ارنت مركز اللحاد النبي يري انت انا يدن كو امانين اعماش الصالحه ودغدغه وحويا او الدجال فشر غائب ينتظر انت انو امانين مسيح الدجال كي شرك بدنا وكا شر بدن الا سغبوري النبي عليه الصلاه والسلام عملك كفايديستا با رسولك ليهي فتنadaasi inta aan idin la kulmin oo fitanta adduunyada soo maraysa kuwa ugu sharka badan ayuu kamid yahay masiixu dajaal sida darteed ayaa rasuulkeenu umada in badan sharkiisa uu cadeeyay wakadalika anbiyadii rasuulka ka horeysay nabi waliba ummadiisa uu uga digay dhibaatada iyo sharka uu xambaarsan yahay masiixu dajaal ayaa rasuulku waxa uu ina faray salaad kasta dabadeed ilaahay subxaanahu wa ta'ala shirkiisa inaynu ka magan galno waa kii ku sugnaa xadiidkii imaam muslim uu soo saarayay min xadiisi abi hurayra nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi mid idinka idinka midi marka uu ataxiyaadka uu dhammeeyo falyastacid billaahi min arbac ilaahay subxaanahu wa ta'ala afar shay ha ka magan galo وحا رسولك ويرهيد أدونك مركا دعاً اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إلهي وحن كان مغنقليا جهنم عذاب كيدا إلهي وحن كان مغنقليا قبرك عذاب كيسا إلهي وحن كان مغنقليا فتنة النلشة iyo tadhimashada labadaba inaan ku fitnoobo rabbiyo waan ka magan gelayaa ilaahay waxaan ka magan gelayaa adoonku ha yiraahdo buu rasuulku fitnada uu xambaarsan yahay masiixu dajaal buu nabigu calayhi salaatu wasalaam taasaynu dareemaynaa markaa in rasuulku inta aanay dhibaatooyinkaasi imanin uu inala jeclaa inaynu wada badbaadno oo aynu ka faa'iideysano oo aanaynu ko iska moog arrimahaasi aanayna qabsanin arrinta toddobaad ee rasuulku ku gabagabeeyay digniintii uu nasiinayay aw as-saa'a was-saa'atu adha wa amr waxa uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam amalka saalixa u degdega inta aanay saacada qiyaamuhu aanay dhicin iyada ayaa ka shar badan oo ka culays badan dhammaan arrimaha sharka oo dhan iyada ayaa ka qadhaadh oo maalinkaasi waa maalka ilaahay uu ku tilmaamay caruurta yaryar culayska jira awgii inay ciraysanayaan oo timahoodu ciro ay isu bedelayaan fakayfa tattaquuna in kafartum yawman yaj'alu alwildana shiba markuu ilaahay nagala hadlayay maalinta iyo dhibaatada ay xambaarsan tahay alla waxa uu leeyahay sidee baad u cabsan doontaan haddii ilaahay aad diidaan oo ka gaalowdaan maalinka caruurta yaryar ay ciraysan doonaan ee culayska inta leeg xambaarsan sidee baad ugu tala gashay inaad waxa weeyaan aad u qaabisho oo aad uga diyaar garowdo haddii waqtiga ilaahay uu ku siiyey iyo camalka ilaahay uu ku suurto geliyo aad dayacdo masiibadaas Allah subhanahu wa ta'ala uu ka digaya marka toddobada qodob waa toddoba qodob oo muhiim ah oo nolosheenuba ay ku taagan tahay weeyaan oo loo baahan yahay adoonka muuminka walaalayaal inuu ku baraarugsanaado oo nolosha adduunyada iyo daldalaalkeedu aanay jiidanin aqulu qawli hada واستغفر الله لي ولكم واستغفروه
إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم صلوا وسلموا على من زاده الله شرفا وتعظيما، كما أمرنا الله تعالى بقوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وعلى نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.